السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإذا وذا السلام يا دمانتين سودا دنتين الدنيا أن جوجنا الله يبرنا النوع وطال وحن جوجنا حلي لو حد قد بأبورك إلهي والله يابك الدونك بس قبلها عينو داون وحي سمينا يا وعصبي always I'm keen ogow inaan ahay boqorkii tiktok maahan hip hop ugu horreyn horta markaan aniga shakhsiyadeeda iska bilaabo aaladan tiktok ah waxaan isticmaalayo waa maalmo fara ku tirsan ama isticmaalay aan fariirkii argagax aan ka soo qaaday haddaaba tiktok iga horreysay adaaba iga siyaa badan dhanka kale waa markii igu horreysay reaction aan ka bixinayo dad kale ama walaalo kale oo Soomaaliyeed tanna damiirkayga isiin waay inaan ka aamuso kolley gabdho kaliya maysan ahayn gabdhihii wiilal ayay iskugu jiraan waxaana qeyl u sameynaynaa gabdhaha u gafay wiilka iyo ilaahay abuurisiisa kana soo qaadna inay yihiin gabdho aad u yaryar caqligooda uusan weli ku filnaansho uusan soo gaarin inta yar ee garashada ku jirtana ay siisayba inay u gafaan abuursis ilaahay waxaase kaaga daran dumar kaliya maysan caynan rag kale oo ilaahay abuursis u gafay ayaaba meesha ku jiro kana soo qaadba wiilkaas inay dhali karaan ama uu ka yaryahay xitaa damiirkooda iska daayay shakhsiyadda ku jirtay naftooda ayaa waxay siin weysay inay ilaahay subxaana wa tacaala abuursis ay faraha ka qaadaan midda kale marka aynu ku laabano xikmadda iyo cilmiga ilaahay subxaana wa tacaala wuxuuna leeyahay huwa alladii bacata fi lummiyiina rasuulan minhum aayaatihi wayusakiihim wayucallimuhum alkitaaba walxikma waa labada shay aan kala harin haddana kala duwan waa cilmiga iyo xikmadda haddii cilmiga wax yar kuu bilaabaya xikmaddana eber ah ka tahay waxay ka dhigan tahay fartaada adigoo malab ku soo daray rabana inaad ogaatid inay dhadhan leedahay adigoona carabkaaga saarin taana waxay ka dhigan tahay raggan qowsaaraha ah ee abuurista ilaahay u gafay warheedha weligaa dugsi laguma geemiyaa haddiise lagu geeyase intaan qur-aanka lagu dhigin waxa lagu dhiga mataqaanaa alifka ka reebay alif axmaala lagu soo dhigay xigmadda kasii horreysay loogu talagalay in dugsiga adigoo 4 jir 5 jir lagu geeyo mataqaanaana dabcan mataqaani sababta laakiin aniga kuu sheegaya waxaa lagu geeyay dugsigaas waxay ahayd inaad qiyam iyo akhlaaq lagaa soo baro macnaheedu maahan adigoo 3 jira inaad qur-aanka xaafid aad noqoto macnaheedu waxay ahayd meesha aad kusoo barbaaraysa inaad ogaatid inaad tahay nin muslima ilaahayna inuu jiro in lagu soo baro taa waa ka tillaabsato waxaad u xadgudubtay ilaahay abuurisiis ayay ku xadgudubtay ilaahayna muxuu sheegtay ina allaha caliimun xakiim marka ugu dambeyn idinku fogaan maayo kolley haddii laydinla hadli jiro waa idinla hadlay waana rajeynayaa inaa ilaahay subxaana wa tacaala u laabataan muuqaalada qaar iska duubaysaan ka taxadartaan assalaamu calaykum